yaxya cabdi nuur oo ka mid ah culamaa diinka daayirta ee ku dhaqan degmada Arabsiyo oo munaasabada ciid al-adha la wadaagay telefishinka Sam News TV ayaa ugu baaqay bulshada qaybaheega kala duwan inay u naxariistaan oo hoos u eegaan dadka daayirta ee والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن ما أنت لها مسلمين تدمنتهم كل عام وأنتم بخير وعيد قيمة بدن وعيادي لهي سبحانه وتعالى لبدأ عيدود اللي نوجد تلقى لهذين المسلمين تنهي أين لا نهينا. وحليها هي لما برشة الصومالي لان يو برشة مجال العربية كنا يدمر المسلمين تدمنتهم وحليها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo oo nagu gaarsiiyo maanta kuleelo waa jiraaye roobna ilaahayna siiyo subxaanahu wa ta'aala laba kelmadood baan ku daray maanta munaasabada iyo jaaliska darteed waxa jira ummadda abaar badan baa haysa abaartaasi waxay diinteena islaamku ina bartay in ilaahay loo baxo subxaanahu wa ta'aala oo loo tukado ilaahayna la baryo inuu abaarta ka soo jebiyo waxaan ogeyn xanuun baa dhacay sanawaadkii ugu dambeeyay xanuunkaasi markuu dhacay guddi baa loo sameeyay soo qof kastaaba xanuunka ka dagaalamayo oo ordayo oo leh xanuunkaasi aanu igu dhacin waxa la sameeyay dadka kala fogaada la yiraahdo guddigii karoonaha way noogeen xataa culimadu ku jirtay wadaadkan ee sidiintii oo qaafto waxa la sameeyay dadka la yiraahdo kala fogaada in la yiraahdo dadku masaajidada yaana iskugu iman iyadoo xanuunka darteed loo sameeyo waxyaalaha ugu daran iyo aafooyinka ugu waaweyn waxa kamid ah walaalayaal waxa ugu daran abaartu waxay kamid tahay waxyaalaha ummadda oo dhan banameeyay ayuu kamid yahay maanta ummadda muslimiinta ah abaar badan baa haysa xoolihii way dhamaadeen waxa kale oo iyagana aynu ognahay dadkii miyigu aad bay u liitaan haddii miyigu dhamaadana magaaladana way soo gaaraysaa waxaan leenahay dawladdu iclaan inay bixiso oo tiraahdo dadku salaad ha u baxaan waa qiimo badan bay leedahay waxaad moodaa tusaale ahaan marka xanuunka laga dagaalamayo waxay u eeg tahay in la leeyahay xanuunku ku magaaliyo ku kala ma dhaafiyo la leeyahay laakiin abaarta loo arkayo inay miyiga qura saameynayso lidaalka waxaan leenahay ha loo guntado oo dadkan ay mas'uuliyadu saaran tahay iyo muslimiinta dhamaantoodba waa in salaad loo baxo midda labaad ee ku daraya waxay tahay ummadda muslimiinta ah waxa weeye waa inay iseegaan qolada wax haysaa waa inay kuwa kale eegaan ayaamahan oo kale waxay diinteenu ina fartay in dadku ay sadaqaad bixiyaan inay muslimiinta ogaadaan oo siyaartaan ka jiricsan la ogaado waxaan ognahay maanta wadankeena aan ku noolahay inay ummadii laba dabaqadood noqotay dabaqada aynu ognahay sidee u nooshahay dabaqada aynu ognahay xaalkay ku nooshahay inay dhowr goor wax cunayaan iyo qolo aan waxba cunaynba labadaas ay kala noqdeen qaar aan waxba loo karinayn oo xataa hadday xanuunsadaan aan dhakhtar tagay labada caqabadood laba in haya sixir barakii waxaan ognahay suusna u kacay taasi waxay keensanaysaa inay ummadani ay noqoto ummad isku cadow ay noqoto labada dabaqadood haday noqoto maxay noqonaysaa ummad isku cadow waxyaalaha diinteenu ku sheegtay waxa kamid ah in sadaqa la bixiyo saka la bixiyo sakada maxaa loo bixinayaa kayla yakuna dawlatan bayna al-aghniya inaanu xooluhu ku wareegin oo qura kuwa aqniyada ah dhexdooda inay ummaddu isku soo dhawaataa sakada loo sameeyay oo ka miskiinka ana kor loo soo dalaco ka qaniga ana oo kan kala eega ayaa loogu talagalay walidaalka ummadeenu maanta way kala fogaatay waxa jira maanta dadka mas'uuliyiinta iyo dadka dhaqaalaha ayaa markay xanuunsadaan dhakhtar dibadeed bay tagayaan maalin kasta media waxaan ka daawanaynaa iyadoo oo dad xanuunsanaya oo masaakiina oo $100 ee wadanka gudihiisa aan helaynin dibadda aad u baahantiin la oranayo waxaan leenahay dadka mas'uuliyadu saarantay dawladdu ay ka tahay waa inay eegaan oo ummadda dhaqaatiir fiican oo sameeyaan goobihii lagu daweyn lahaana oo sameeyaan ummadani ma karaysa Hindiya la idin geenaya iyo Itoobiya dhakhtarkiinu noqday iyo Yurubtaad u baahan tahay ma karayso waa ummad quutal daruurigii kari lah taasina la ogaado weeyii waa ummadda tan ay dadka waxaya iyaguna ay ogaadaan ummadda muslimiintu maanta halkii taagan tahay waa maalmo qaaliya ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaq hayna garansiiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu roobina siiyo salaamu calaykum wa rahmatullahi وموسى حسين حسن Sam News TV degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley.